gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayle Makaraan ayaa uga warbixiyay mar uu waraysi gaar ah siinayay TV-ga Star howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo ay kula dagaalamayeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab kulana wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waa kan gudoomiye Axmed Mayle Makaraan oo TV-ga Star uu wax ka weydiiyay هذه أدوات هذه المحسنتين تلفزيون كستار TV هذه المحسنتين سيد المار ولا سنة المار برنامج كان كي يقدر بتين المار وهذا شبه الله ده حال هيس قبل كشبه الله ده مدن كي قدام بيجي واحد كالسعودي هالقلو أي سمينين إذا ماذا دولة فدرال كالصومالية يقوى أميسوم بل howlgalladii halka ay marayaan bismillaahir rahmaanir rahiim gobolka Shabeellaha Dhexe howlgallo ayaa ka soo rumaayay oo mar dhow waxa maartay in gacanta Al-Shabaab laga baashay tuulooyin badan oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan nabadgelyadooda aad ay wanaagsan tahay wax dhibaato kama jiraan aad iyo aad ay maartay howlgallada sida rabay ugu dhaceen dadweynihii iyo dhammaan ciidamadii iyo ummadii meesha deganeedna dhibaatadii haysatay ilaahay baa ka dulqaaday laakiin waxa doorkaas maartay dadaalkaas maartay badan ku bixiyay dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM oo iskaashanaya dhammaan gobolka meel guulo weyn la gaar aaday u wanaagsan xaaladooda meeliyada gacanta ay dawladda ay la wareegtay waan gartay gudoomiye waxa sheegtay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe bal deegaanadii markii ay la wareegeen maxaa idinka ka maamul ahaan shacabka oo halka adkeysay maamulku waxa uu qorshaysan in horta maartay goobaas markay si wanaagsan ay loo xasiliyo oo howlihii maartay waa la wareegay hadda laakiin xasilintooda markay aad u wanaagsanaato in la geeyo adeegyadii maamulka sidii maartay bulshadii loogu soo celiyay ayadana maamul loogu helo sida maartay xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo adeegyada kale u baahan yihiin hadii aan maartay la helin maamul meeshaas oo la geeyo waxa adeegyadaas oo dhan ayaa maqnaahayo sida maartay adaha iyo inta kale inta oo maartay la midka in maartay loo yiraahdo meeshaas dhibaatada ka jirto sida loogu soo bandhigo looguna qabto adeegyada dadka ay u baahan yihiin maadaama aysan jirin goobaha gacanta lagu qabtay adeegyo caafimaad aysan ka jirin adeegyo waxbarasho aysan ka jirin bal waxa kaga sii daran meelihii caafimaadka oo loo dhisay dadkii markaas ay ayaga dhisteen inay xabsi ay ka dhigteen nimankaas oo maartay dabeecadooda ay kamid tahay inay gurigi umada loogu adeegayo oo haweenkii maartay xagga MCH ku ahay dadkii tuulada sidii loogama maartay nasawaayeen hoteeladii iyo beertii nabadda qofkii looga nasawaayay waxay ku tusaysaa meel looga nasaa inaysan jirin maadaama aan looga nasayn meeshii qofka amni u tagtay ilmaheedii ayda inay ku istariixaan ama ay nastaan ama ay meeshaas ay isaga shaacabaan ay u tageen looga nasawaay inay sida looga nasawaay ayagana aysan looga nasan aniga in maartay gobolka Shabeellaha Dhexe dadka jooga ay go'aankaas qaataan leeskana celiyo Soomaalidu hore waxay u tireen qaniya ka fujiso Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho